ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. السلام عليكم دمان أخيارت شرفت له كسو دبادة كنالك سهنك دونيدا. فارس أما بقرطوية بيرشيا ومقع قديمي ee wadanka Iiraan waxaana ku jira dhammaan astaamaha juqraafiga iyo jawi dhaqaale sareeyo. asalka reer Faris wuxuu ku noqonayaa muhaajiriintii ku hadli jiray luuqadda Iiraan oo yimid wadamadaas Aasiya sanadkii 1500 dhalashadii Nabi Ciise ka hor. sidoo kale waxaa loo yaqaanaa inay ka tirsan yihiin qabiilooyinka Caucasian. magaca Persia ayaa lagu sii waday ilaa iyo 1935 milaadiga markaas oo Behrezi uu go'aansaday inuu magaceeda u bedelo boqortooyada Iiraan. haddaba intaana gudagalin barnaamijkeena fadlan subscribe saar kanaalka gambaleelkana taabo si ay muuqaaladeena kuu soo gaaraan. haddii uu ku anfacana muuqaalkani fadlan like garee. asalka ereyga Iiraan wuxuu ka soo jeedaa ereygii reer Aryanis ee yimid qaybta galbeed ee Persia qiyaastii 2000 dhalashadii Ciise ka hor kuna soo beegantay xukunkii reer Ashuur kuwaasi oo ka qayb qaatay aasaaskii boqortooyadii Persia. sifooyinka qadiimiga ah ee Persia lagu xasuusto waxay ku fideen inay ka mid yihiin dhulal ka ballaaran kana baaxad weyn dhulalka ay Iiraan haysato waqtigan la joogo, maadaama magaca Iiraan uu noqday kan ugu isticmaalka badan adduunka. Persia waxaa lagu gartaa tayada qaab dhismeedkeeda waxaana saameyn ku yeeshtay dhowr arrimood oo aasaasi ah, aragtiyo iyo macluumaad kuwaasoo soo socda ee ku saabsan waxyaabaha saameynayay dhismaha Persia. waxaa ka mid ah Faris waxay leedahay dhismo qasri ah. tusaale, qasriyo waaweyn ayaa la dhisay oo ka duwan daarihii ilbaxnimadii Mesopotamia. waxaan rajaynayaa in uu muuqaalkani ku caawiyay. haddii uu ku anfacay la wadaag oo sii gaarsii asxaabtaada kale. haddii aadan horay subscribe u saarinna kanaalka hadda subscribe saar si aad muuqaaladeena dambe ula socoto.